بسم الله الرحمن الرحيم. إبا مهله مولها خلقي ومجن إله باله ملائكة خيركم وديه محمد بانور له اللهم صل وسلم وبارك عليه. كلنتي wanaagsan dhamaantiinba waxaynu halkan ku wadaagi doonaa barnaamij noqon doona taxane 5 qaybood ah isla markaana aynu kaga sheekaysan doono hal abuur ganacsiyeed. barnaamijkaasi wuxuu noqon doonaa barnaamij kooban oo halqadu ay noqon doonto 10 daqiiqo haddii eebeed mahayo. waxay noqon doonaa barnaamij taxane ah xiriir leh isla markaana kala madax bannaan xiriir leh oo noqon doona barnaamij dhammaantiin la xiriira hal abuur ganacsiyeedka isla markaana kala madax bannaan oo xalqad waliba ama qayb waliba ay ku saabsanaan doonto wax cusub ama wax ka duwan wixii hore. barnaamijkeena maanta aynu ku bilaabanayno ku saabsan hal abuur ganacsiyeed wuxuu noqon doonaa waa maxay hal abuurku ama waa maxay hal abuur ganacsiyeed. sooyaalkiisuse halkeebuu ka soo bilowmaa ama halkeebaa laga soo dhaqaangelin karaa oo kasoo unkama. haddii aan ku horeeyo sooyaalka hal abuur ganacsiyeedka. hal abuur ganacsiyeedku amaba hal abuurku guud ahaanba lama odhan karo waqti cayiman ayuu soo bilowmay oo wax la dhashay bilowgii aadamaha isla markaana mar waqtiba waqti ka dambaysa la soo kobcayo isla markaana la korayo. aadamuhu markii uu adduunkan eebbaheen bilaabay waxa uu bilaabay isaguna in uu ka fikiro noloshan uu galay iyo noloshan lagu nool yahay iyo kownkan uu ku nool yahay wixii nolosha u fududayn lahaa wixii u sahli lahaa inuu marba wax cusub soo kordhiyo mushkiladihiisa xalliyo inuu noloshana fududaysado ama bulshada la dhaqan la nool uu u fududeeyo. haddaynu si kale u nidhaahno hal abuur ganacsiyeedka waxaa la yidhaahdaa kan cusub ee dunida maanta ka jira marba marka dambaysa sida xawaaraha leh ku soconaya waxa uu soo bilowmay casrigii ama kacaankii warshadaha waqtiga lagu tilmaamo. waqtiga wixii ka dambeeyay hal abuurku kor buu sii qaadmayay isla markaana uu sii kobcay. haddaba waa maxay hal abuurkan aynu doonayno inaynu ka hadalno ama hal abuurkan aynu doonayno inaynu ka sheekaysano intay barnaamijyadani socdaan. hal abuurkan aynu doonayno inaynu ka hadalno waa in fikir loo bedelo wax anfac leh ama fikir loo bedelo wax faa'iido leh. haddii aan si kale u idhaahdo in fikir loo bedelo fulin. fulintaasi ha ahaato inuu ahaado waxa la fulinayo ama waxa loo bedelayo fikirka loo bedelayo fulinta in la soo kordhiyo wax cusub oo la bilaabo isla markaana wax cusub ama adeeg cusub ama hawl cusub amaba mashruuc cusub la bilaabo ha ahaado hab iyo hanaan cusub oo wax hore u jiray amaba wax jiray qaab loo qaban jiray qaab ka duwan loo sameeyo oo ka cusub bulshada cidina hal abuurayso oo ay samaynayso amaba in adeeg cusub la soo kordhiyo oo la hal abuuro adeeg cusub. guud ahaan hal abuurku waa in fikrad loo bedelo fulin. hal abuurku waxa uu la jaan qaadaa koritaanka aadamaha oo ilaa maalinta aynu dhalanno ilaa inta aynu dunida ka tegayno hal abuurku waa wax jiraya waana wax maskaxdeena iyo kobceena mar walba la jaan qaadaya. waxay yidhaahdaan waqtiba waqtiga uu aadamuhu ka yar yahay ayuu ka hal abuur badan yahay amaba ka maan furan yahay. tusaale ahaan ilmuhu marka uu 5 sano jiro waxaa la yidhaahdaa hal abuurkiisu waxa uu gaarsiisan yahay 90%. waxa uu abuuri karaa amaba hal abuuri karaa wax cusub waayo uu maan furan yahay wax badan buu isweydiinayaa si xor ah buu u fikirayaa dabarada ku xidhanna way yar yihiin ama waa ay kooban yihiin. ilmuhu marka uu 5 sano dhaafo 7 sano joogo tusaale ahaan 7daas sano waxaa la yidhaahdaa hal abuurkii ilmuhu si aad ah buu hoos ugu dhacaa waxaana isugu soo ururaa 10% keli ah 90% ilaa 10% muddada 2 sano ah. maxaa sababay
waxaa sababay bay yidhaahdaan ilmuhu markan uu 5 sano jiro uu maan furan yahay waxyaabaha dabarada ku xeeran ama waxyaabaha xadidayaana way kooban yihiin waa sababta uu ilmuhu wax badan isu weydiiyo waa sababta uu su'aalaha badan u leeyahay waa sababta mar kasta oo uu wax cusub la kulmo uu isagu isugu dayo inuu u falkiyo sida uu isagu u arko inay saxsan tahay hadday doonto haba qaldanaatee sidoo kale waa sababta marka uu bannaan uga soo baxo gurigooda ama deegaankii uu ku noolaa waalidkii ama cidda la socota ama cidda uu la joogo uu wax badan u weydiiyo ugana su'aalo deegaanka cusub ee uu la kulmay 7 sano markuu ilmuhu gaadho waxaa biloomaya waqtigii waxbarashada in dugsi la geeyo marka dugsi la geeyo ilmihii waxaa soo koobmaya fikirkiisii waxa uu bilaabayaa ilmihii nolol cusub iyo deegaan cusub waxaa u yeedhsan amaba u yaalla amaba uu raacayaa nidaamyada dugsiga uu tegey meel gooniya buu leeyahay oo uu fadhiisanaya si gooniya buu wax u weydiinaya wax gooniya baanu dadka wax ka weydiin karaa qaabka uu la xidhiidhayo deegaanka cusub iyo dugsigaas iyo ardaydaas iyo barayaashaasina waa qaab cayiman oo la barayo isla markaana loo sheegayo waxa uu isweydiinayo ama waxa loo ogol yahay inuu wax ka weydiiyo na waxa weeye manhajka u dejisan iyo waxa uu dhiganayo casharadiisa haddii uu la yimaado wax ka duwan waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo oo kale weli lama gaadhin in aynu su'aalahaasi ama casharadaasi weli ma aynaan gaadhin ilmihii 7 jir marka uu dugsi ku bilaabo hal abuurkiisu amaba abuurkiisu uu noqdo 10% maxaa dhacaya wixii ka dambeeya waxaa la yidhaahdaa ilmuhu marka uu tusaale ahaan 8 jir gaadho haddana waxaa hoos u dhaca awooddiisa hal abuur waxaana isugu soo ururtaa 2% keli ah 2%daasiba ay ku joogsantaa amaba ku taagnaataa haddii uu qofku ka badbaado waxyaabaha dila hal abuurka oo u baahan in la barto lagana feejignaado ilaa inta uu gaadhayo 45 jir 2%daasi amaba uu kasii weynaanayo ayuu ku taagnaanaya hal abuurku waa wax barasho u baahan waa wax xeerar iyo nidaamyo leh loo raaco loona fuliyo waana waxa ay samayn karto cid kasta ma aha wax waxyi ah oo dad gaara kusoo dega dad gaar ahna loogu talagalay waxaa jira markaynu ka hadlayno dugsiyada iyo waxbarashada buug uu qoray nin la yidhaahdo John Tyler oo la yidhaahdo Weapons of Mass Instruction oo ka warramaya dugsiyeynta qasabka amaba ubadka in nidaamkan dugsiyeynta ee marka ay da'da la gaadho ilmihii in dugsi la geeyo qasabka dhigayo iyo waxyaabaha ay saameynta ku leedahay hal abuurka amaba hal abuur ganacsiyeedka amaba qofkii inuu noloshii wax cusub kusoo kordhiyo sooyaalka aadamaha ee hal abuurka marba marxalad jooga kuna xidhan da'diisu inta ay tahay iyo deegaanka uu ku nool yahay waxay isugu soo urureysaa in fikrad loo bedelo wax anfac leh amaba in fikrad la fuliyo isla markaana bulshada loogu dhigo qaab ka duwan qaabkii uu ahaa ama wax cusub lagu soo kordhiyo barnaamijkeennan waxaynu kaga sheekaysan doonaa dee beenid mahayo hal abuurkaas ama hal abuur ganacsiyeedka sidee shirkad ama urur amaba kooxi ay nidaam hore u jiray wax uga bedeli karaan sidee nolosha loo fududeyn karaa sidee loo kobcin karaa hal abuurka waayo ganacsigu kama maarmo inuu mar walba hal abuur jiro haddii uu ganacsigu hal abuuri lahaan waayo waxay noqonaysaa inuu jiritaankiisii warwar galo waayo noloshu sida ay u soconayso ayay tahay inuu ganacsigu la jaan qaado ayay tahay inuu marba marka ka dambeysa sii fududeeyo ayay tahay marba marka ka dambeysa waxa la soo kordhinayo inuu isaguna la jaan qaado dunidu waqtigan la joogo aad bay isu bedelaysaa bulshaduna aad bay isu bedelaysaa qaabka loo macaamilo qaabka loo wada xidhiidho qaabka loo wada shaqeeyo intuba wax badan baa iska bedeli doona intaaynu barnaamijyadan ku guda jirno waxaynu ka sheekaysan doonaa hal abuur ganacsiyeedka xeerarkiisa waxa uu yahay sida loo samayn karo nidaamyadiisa waxyaabaha dila hal abuurka
iyo sidoo kale sida loo joogtayn karo hal abuurka. Intaan ku kulmi doono qaybteena labaad ee barnaamijkeena waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.